waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu ku soo bandhigi doonno qodobo ay ka mid yihiin mustaqbalka maxamed bin salmaan oo la sheegay inuu ku xidhan yahay natiijada dagaalka qiimaha shidaalka iyo haddii ay sacuudigu ka badbaadi doonaan dagaalkaasi oo ay iyagu bilaabeen waxaa kaloo barnaamijka qayb ka noqon doona xukunka xabsiga ah ee lagu riday dembiilihii isku dayey inuu dilo xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan koongareeska dalka maraykanka maxaabiistii ugu horraysay ee ururka daalibaan oo ooda laga qaaday iyo caqabadaha ay midiba mid ka dambayso ee ay afganistaan ka waajahayso sidii ay u noqon lahayd dal xasiloon oo cagihiisa isku taaga qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka majalladda Opel Press ayaa warbixin ay ka samaysay tartanka dagaalka isu rogay ee ku saabsan qiimo dhaca lagu talagalay ee boqortooyada Sacuudigu ku samaysay shidaalka caalamka ayaa waxa ay sheegtay majalladdu in xilli ay caalamka oo dhan isha ku hayaan dagaalka qiimaha shidaalka ee ka dhex dillaacay Sacuudiga oo ay wehelinayaan ururka OPEC iyo dawladda Ruushka oo sidoo kalena ay dagaalka qayb ka yihiin shirkadaha soo saara shidaalka ee dalka Maraykanku ayaa dhanka kale halkaa waxaa dhibaato weyn oo gunteeduna dheer tahay oo ah inay boqortooyadii Sacuudigu waajahayso khataro fara badan oo xitaa jiritaankeeda guudba galaafan kara xilli aanu hoos u dhaca qiimaha shidaalku ilaa xad u dhammayn doonin khayraadka dalka iyo barnaamijkiisa kala duwanaanshaha dhaqaale laakiin mushkiladda jirta ay tahay xaaladda liidata ee dhaxal sugaha maxamed bin salmaan taasoo hadidaad aan yarayn ku ah mustaqbalka boqortooyadaasi sida ay majalladdu warbixinteeda u dhigtay warbixintu waxay leedahay toddobaadkii dhoweyduunbay ahayd markii maxamed bin salmaan uu qaaday olole uu ku bannaysanayo dariiqa uu marayo carshiga boqortooyada dabeetana uu xidhxidhay amiiradii u waaweynaa jiilka labaad ee umarada qoyska reer boqor oo ay ka mid ahaayeen adeerkii axmed bin cabdilcasiis iyo inadeerkii amiir maxamed bin naa'if qabqabashada iyo xadhigga umaradanana uu ku soo beegmay xilli ay dhibaato dhaqaale ka taagan tahay boqortooyadaasi ahna marxalad kama dambaysa oo waajahayo dhaqaalaha sacuudigu waana xilli ay iyagoo sacuudigu u jeesteen sidii ay u dedejin lahaayeen howlaha kala duwanaanshaha ilaha dhaqaale si ay natiijo kasta oo wax ku oola oo ay ka gaadhaan ay u hordhigaan kulan madaxeedka dalalka G20 oo magaalada Riyaal ku qabsoomi doona dhammaadka sanadka dhanka kalena ay ganacsatada dalka iyo maalgashadayaasha shisheeyaba rajo wacan ka qabeen xaaladda boqortooyada ayaa haddana mar kale wax waliba ay xumaadeen oo xadhigga umarada Sacuudiga iyo tartanka loogu jiro carshiga boqortooyadu uu suurad xumaynayaa martigelintii 20ka hogaamiye ee dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka maadaama ay meesha iman karto in la iskuba qaadqaado xilliga ay madaxdaasi ku sugan tahay Sacuudiga amaba ay khilaafka umaradu iska hor keeni karo taliyaasha ciidamada dhanka kalena uu maxamed bin salmaan khatar ku gelinayo dhaqaalaha boqortooyada go'aankiisa oo wax soo saarkii shidaalkana ku kordhiyey qiimihiisiina hoos ugu dhigay xilli waliba dhaqaalihii caalamiga ahana uu la dhutinayo saamaynta uu fayraska korona ku hayo dunida iyadoo qiimaha shidaalka ee ku habboon odoroska miisaaniyadda sacuudigu uu yahay inay foostadiiba noqoto $80 laakiin hoos u dhaca weyn ee xilligan ku yimi qiimaha shidaalku waxaa culays hor la sii saari doonaa miisaaniyadda dawladda ee boqortooyada oo markeedii horeba la leecleecaysay deynta $50 bilyan gaadhaysa shirkaddii Aramco ee halbowlaha u ahayd soo saarka khayraadka shidaalka ee Sacuudiguna ay isniintii khasaartay 10% qiimaheedii waana shirkadda ay ka shaqeeyaan 70% cududda shaqaale ee boqortooyadaasi culays kasta oo hor leh oo haatan ku yimaada dhaqaalaha Sacuudiguna waxa uu keeni doonaa inay fulinta mashaariicda waaweyn dib u dhacaan amaba ay xannimi karaan oo la laalo muddo aan la cayimin taasoo horseedi karta jahawareer ka dhex dhasha maalgashadayaasha fuliyayaasha iyo bulshada caamka ee Sacuudi Arabiya xasilooni darrada noocaasina waxay khatar gelinaysaa booska dhaxal sugaha maxamed bin salmaan dhaqaale xumo kasta oo sii socotaana
waxa ay fursad siin doontaa dhinacyada isaga ka soo horjeeda oo laga aaminsan yahay inay yihiin quwadda muxaafadiinta ah ee dalka. howlgalladii dhowaan lagu qabqatay umarada sacuudiga qaarkoodna waxay caddayn u tahay inay jirto xaalad deganaansho la'aan siyaasadeed, dhibaatooyinkiina ay durba bilaabmeen. sii socosho uu qiimo dhaca shidaalku ku sii socdo muddo dheerna uu xaaladda maxamed bin salmaan ka dhigi doono mid ay khatari ku gadaaman tahay. dhanka dalka Maraykanka waxaa xabsi hal sano ah lagu xukumay eedaysanihii loo haystay inuu ku hanjabay inuu dilayo xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska ee dalka Maraykanka. eedaysanaha Patrick W oo 56 jir ah waxaa maxkamadda ka qartay inuu galay eedaymaha loo jeediyey ee ku saabsan inuu dilo xildhibaanada isagoo doonaya inuu ku xadgudbo xuquuqda nololeed ee mas'uul Maraykana oo la doortay oo uu doonayay inuu rasaas madaxa kaga dhufto. dembiilana uu ku yahay inuu haystay qori iyo rasaas wax dili kara oo sharci darra. waxaa kale oo dembiile Patrick oo ka soo jeeda caddaanka cunsuriyaddu madax martay uu qirtay inuu la xidhiidhay xafiiska Ilhaan Cumar ee magaalada Washington ee caasimadda bishii Noofembar 2019. go'aanka maxkamaddaasi ku xukuntay dembiilaha muddada sanadka ay keliya ayaa dhinacyada qaarkood waxay u arkaan midaan cadaaladda waafaqsanayn, maadaama qaanuunka dalka Maraykanka ay dembiyada iskudayga dilka mas'uuliyiinta heer qaran ay muddadiisu tahay 10 sannadood. waana xilli militariga dalka Maraykanku ay salaasadii shalay bilaabeen ka bixitaankooda dalka Afghanistan oo ay ilaa haatan baneeyeen 2 saldhig oo waaweyn oo ka mid ahaa 5 saldhig ay ku lahaayeen waddankaasi oo ay ku sugnaayeen muddadii 20 sannadood ahayd ee u dambeysay. xukuumadda Afghanistan waxay bilowday inay xabsiyada ka sii deyso maxaabiista ururka Taliban ee ay jeelasheeda ku haysay. ka bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Afghanistan iyo kala bedelashada maxaabiistana waxaa dhigaya heshiiska ay dhowaan dhaqdhaqaaqa Taliban iyo dowladda Maraykanku ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar. heshiiska oo sidoo kale dhigaya inay dhaqdhaqaaqa Taliban qaadaan mas'uuliyadda amni ee deegaanada ay gacanta ku hayaan iyo inay wada hadal siyaasadeed oo rasmi ah yeeshaan dhinacyada reer Afghanistan sida Taliban iyo xukuumaddu. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani oo toddobaadkan mar kale loo dhaariyay xilka madaxweynenimada ayaa ku dhawaaqay inay xukuumaddiisu sii deynayso 1500 oo maxbuus oo ah dufcaddii u horreysay ee maxaabiista ururka Taliban oo tiradooda guud gaadhayso 5,000 oo maxbuus. ka qayb qaadashada xukuumadda Afghanistan ee fulinta heshiiskaasi ayaa caqabado kala duwan waajahayaan maadaama muran weyni ka taagan yahay natiijada doorashadii madaxweynenimo ee u dambeysay oo ay taageerayaasha mucaaradku dhinacooda madaxweyne u caleema saareen musharaxoodii Cabdalla caleema saarka oo ay ku beegeen isla maalintii dib loo caleema saarayay madaxweynaha Afghanistan. masaaxadda juquraafi siyaasadeed ee Afghanistan ku taalla ayaa ka dhigaysa inay caqabado kala duwan kala kulanto dariiqa ay u marayso xasilooni iyo degenaansho ka tisqaada. waana dowladda Afghanistan oo ay Maraykanka iyo gaashaanbuurta neetana ku sugnaayeen muddadii 20 sannadood ahayd ee u dambeysay, xuduudana la leh wadamada Shiinaha iyo Iiraan oo ka soo horjeeda Maraykanka. waana Afghanistan oo ay Hindiya xidhiidh ganacsi la samaysatay, xuduudna la leh Pakistan oo saameyn siyaasadeed iyo mid ciidanba ku leh gudaha Afghanistan. waana Afghanistan oo la hayba jamhuuriyadaha Aasiyada dhexe oo aanay Ruushkuna aad uga durugsanayn. arrimaha oo ka dhigaya in xitaa haddii ay ka baxdo dagaalka militari ee hubka la isu adeegsanayo ay Afghanistan halis u tahay inay sii dhex dabaalato colaado diblomaasiyadeed oo ay wadamada aynu soo sheegnay ee iska soo wada horjeeda doonayaan inay maslaxadooda ka wada xaqiijiyaan gudaha Afghanistan.